kuwa maalin qaylayo soo rajeynaya waa kan jamaacadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u galay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogana way baktiyeen oo wayna dhageysteen markaan u yar dhamaynay wacdigii aan idhi fadhiguna kala fiicane masaajidkeena mariyo neer raac mid baa gacanta taagoo yidhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhagaysta haye noo kordhiyo jaadka uu taqsiisan yahay sigaarkana nabiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nabiga laga yidhi aduu waaniyo uun baa tahay diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihin nabigii baa sidaa lagu yidhi waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina aqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taalla iimaankii baa daciifa annagoo jawlad bari soconna baa nin u tagnay soomaaliya oo la yidhi ninka waa soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabbaaya wadannada gaalada markaasaan u tagnayo asalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xaggeed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tadna leedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaani bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaane sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara حتى تعلموا ما تقولون وهي نسخرانا وآيات دليلين يأك معلوماتك وهي لكن يقينتي إيمانك ضعيفة مرقاسا نقول نريد لا بأس نراح سلام نراح 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 جماعة انت كلا تصوص صلاة نراح إلهي فلق إنك سليم ونقص الراح جماعتي بلا dhagaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamradii ay ka bacday uu arkay miskiin laga dul eedaamayo oo buu telefoon qaato wuxuu yiri ayaa meeshan keenay ii sheegay waan xidhibe booliis baan ugu yeedhay wadankan hadii booliis lagu yeedho waa khalaas wala lagu tagay markaasaan idhi cidba kuumay naga raalli ah iska socow bas iska socow markii dambe rag noo sheegeen waxay nagu yiraahdeen ninka wadanka markuu soo galay caalim buu ahaa waliba masaajid wadanka ku yaalo imaamka ahaa bay nagu yiraahdeen maantana dariiqu khamriga ku cabaya macluumaadku waa shay waa gooni iimaankuna waa gooni weeyaan umadu maanta iimaanka hoos u yaala iimaankeena kor soo qaadan u baahanahay markaas sidaa darteed bay saxaabada rasuulku inay iimaanka bartaan oo iimaankooga badbaadiyaan wax walba way ka doorteen wallaahi wax walba way ka doorteen dan saacada gaadhanu malay wad yaa ma soo gaabiya kolka in yar insha Allah Allah ina barakeeyo saxaabada rasuulka diintu markay dadaal kugu timaado noloshaada wax kasta waad u hurtaa Abu Salama markuu hijroonayay xaaskiisii baa laga reebay uma joogsan waxay ka dhigan tahay xaaskaaga iyo ilaahay nabiga kala dooro ilaahay nabigu doortay islaantii waa laga reebay ilmihiisina tolkii baa la noqday isagiina madiinuu jooga sanad bay kala maqnaayeen maxay u kala maqnaayeenna diin darteed Suhayb ar-Rumi markuu ka baxay magaalada Makka uu hijroonayay Quraysh baa dhexda u gashay adoo sacluuq oo faqiira noo timiday adoo qaniya naga bixi maysid ama xoolaha halka dhig oo Muhammad adoo faqiira ka daba tag ama lacagtaada hayso magaalada Makka ku noqo wuxuu yiri horta nin Ruumi aan ahay
haddaad i dishaan anna waxbaa niga dili sow lacagun ma rabtaan haa lacagtaydii waa tanan qaata intii kalena meel heblaayay ku aasatee kala baxo qaata nebigayga haga daba tegay ii dhaafo buu yidhi waxaa lagu imtixaamay saxaabiga waa maxay ilaahay iyo rasuulkiisa oo dhinaca iyo lacagtaada kala dooro midkee buu doortay qaar midkuu doortay ilaahay buu doortay iyo rasuulkiisa faqiir markiiba xoolihiisii oo dhan buu dhiibay wuxuu dariiqay banay haddaba rasuulkii baa ka daba tegayaaye su'aal laga yidhi waa kaas wadada mar madiina isagoona soo gaadhin ayaa quraanku soo degayaa wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa'a mardaati illaah wallaahu ra'uufun bilcibaad magaaladii madiina markuu soo galayna rasuulka ilaahay baa hor taagan oo leh rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa rabixa albaycu yaa abaa yaxyaa yaa abaa yaxyaa ganacsigaa maanta ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay baayaca mushtarka ilaahay aad la gashay waad ka macaashtay buu rasuulku leeyahay وصلي رسولك إنسان لعقت يا إله يا رسولك سكلا دوره لعقت يا رسولك وعيك كلا دورنا ين إله يا رسولك سيق عدنا ين قبيلك يا دين الإسلام كلا دورنا تكيقاتين هذا مستنى بحالك الصومال ده يكون درسا بحالك دلك يعني أكو ويني يا الله مصعب بن عمير وقرن إنسان الله رالك النقضي مقري وأنك يقوه الرأي نبي مدينة وصادر ويان وقرآن كبر الرأي مدينة إيادون مدينة نبي محمد ونني من مسكين لقد السن وأنك يقوري قوري دين توقل يبوها رأي مدينة إنده هوغي وبتكوك مصعب يكجعل آيان ولا الكيسي كيرا إيه هو يدي أيلاد شو الناس دايي ayaa ku jiray 70kii mushrikiinta ee dagaalka badar lagu soo qabtay la soo xidhay iyana soo xidhay nin reer Madiino Ansaariya soo xidho haysta halka Abu Jifa Mus'ab nasaas oo dhex socda Ansaartii iyo muhaajiriintii waa ninkii Madiina diinta gaarsiiyay weeyaan marka Abu Dul Maro saas uu eego walaalkay hooyadii baa dhashay waa ku naas daayay weeyaan wuxuu walaal xarigu igu adkeeyay hayga dabciye إيه شفاعات قادو كذب عدبودي مصعب سودان تو يجبودي يا أخ الأنصاري ولا الكيجا أنصاري الرئيس مدينو مر بالنبي قهدودي نين ولو نكات صوح الدي دت كيسات مدح فرشك قادنا السام والنبي يقولي كان وقت كم عشته هو يدي بحوله بدن له لعك بدن يا مدح فرشك بدن بعد كي قادم دو تاي حرق كو أتكيبو كيدي ولا الكي أديك ما حبوده وكابود أنصاري كادين تان ولا لكون هذا عيد والبانيك يقدروا بكيدي حريقة كواد كيبود وقال ويان أبا سفيان عمر كان الإسلام أيام قال مدينة وي مدينة النبي يشيسن ولا قالوا إن أنت زي رملة بنت أبي سفيان وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام أيو أقل كيك كوة عدي وحوض معي قوش النبي كانوا كفرست وكهوس قال مركز بيان أبو ما هل دينتي النبي محمد ما هل كابيكو قارسي السي إن الأبها كيكو بالي قوش أتكقب أو قوش شاير هدو قلان ويدو وعيتني مي أبها يباتهي قوش النبي محمد وقول طاهرة هذا قلنا مشرك النجاسة هاي بيكوتري نجاسة قوش النبي قودي دان هاي بيكوتري إسلام مسلم أكتودا إله يكتس دين إله الرسول يا قيم الأكتودا إنك أنا ما أنت وضعك سن حالك إن الدين تؤكد نقيمة يا لا تعيا دونيا يا وديارة ده الدين تهك شغينه بركة الدين تشغل هذا الغوب بندقه هرصع وايو دين تؤدي يدا يدا كارراعي وحبا كارراعي ما يا أو شيء كستو مالكاغا وقتيغا iyo nafta la geliya qiimihiisa la gartaa موبايل كايراد ودata soo ma darkaysid ilmay yar inuu qurrad ku xaquuqa madoo golan muraayadaas musbaar haduu soo qado soo xaquuqa ka waran musbaar niba kiilo sokor soo iibsaday magaaladu la dhex maraya baadu sokorta ku sitay baad dalooshatay way daadinaysaa dadkoo dhan baa qayli ورسوكرت قبو حاجة قليك سكرت قيمة كان قرنينا لأن العقبة اللي بسدي وحبيت ترتاي وشاهي معانيسا
diintii baa maanta daadanaysa oo halkaa muslimiintii markii masjidka la soo galo suuqa inta ku hadhaysa inta soo galaysa iyo ma badan sidaa weliba idinku waad naga fiican tihiin diintii baa maanta inaga daadanaysa inaan soo qabanno soo maha dema qolo keliya ku daynaa mise kulligeen gacmaan isku qabsannaa ballinkiila dadaalka diintaa ka wada qayb qaadan oo gacanta taag insha allah dhahada insha allah dhahada waqtigan waxaad ku jirtaan ardayda iskuullada dhigatana fasax bay ku jiraan ramadaankiina waa laga baxay ijtimaacii hargeysana 2 bilood iyo wax la jira inaga xiga jamaacadda waxaa la doonayaa ilaahay dartii u dhaqaaqo maalkooga naftooda ilaahay dartii u bixiya laa hijrata bacda alfatxi walaakin jihaadun waniya buu nebigu yidhi markii maka loo soo hijrooday buu nebigu yidhi hijro dambo maka laga hijroonayaa way dhammaatay laakiin jihaad iyo niyad baa jirayay buu nebigu yidhi jihaad iyo niyad haddii laynaga dalba diinta inaad u baxdaan u baxa buu rasuulku yidhi maanta waxaa la dalbayaa in kulligeen akhyaar iyo dhallinyar iyo culamo iyo caamaba diinta dadaalkeega gacmaha isku qabsanno oo nin walba maalkiisa iyo naftiisa wakhtigiisa uu ilaahay dartii ugu baxo insha allah dhahada insha allah dhahada yaa diyaar haye gacanta way yar hoos loo taalaay anu gacanta ma goosanayo Djibouti la tagi maayo way niyo la gacantiin maasha Allah asas ha haya istaagade soo ma qorno haye bal wixii bilahan 2 bilood ama 4 bilood ama bil ama 40 ayaa niyoonaya ilaahay dartii inaan u baxo waan siin niyoonaya waan isqoraya haddii ilaahay ii dhib yareeyna waan baxaya hadday duruuftii saamixi weydana niyadda ilaahay ii qoraya ninkiilow waan ku ducaynaa sharaka walaalayaal sharaka walaalayaal waa khayr weyn khayr baa inaga muuqda taaga waliba insha Allah ma sha Allah dhahada ma sha Allah dhahada waliba insha Allah halka dhaxda igu toosan baa dadku yar yihiin inta kacday wali halka igu toosan naga dhaba rag ma sha Allah haye yalla naga badan 42 bilood iyo bil iyo 4 bilood bisha soo socota ilaa bilaha dambe ilaa ijtimaaca hargeysa ballan ma hayna waa niyad weyn waa niyad haddii ilaahay ku waafajiyana waad baxday hadday duruuftu ku saamixi weydana ajarka ilaahay ku qoraya waa tijaara maca Allah weeyaan man hamma bixasanatin falam yacmalha kutibat lahu xasanatun kaamila buu rasuulku yidhi haya walaal naga farxiya Allah inaga farxiye kordhiya insha Allah dadkii qorayay waa laga batay ma sha Allah xagga damba meel la fadhiistaba meel masaajidku waa buuxa ma sha Allah halkiina fadhiista iska fadhiista bas nabiga ku salliya wala ina qoray insha Allah soo ma niyoon wal wixii niyado gacanta ku taaga mar kale hadda way wada taageenba wala ina qoray insha Allah xagga sare kaameraga xagga sare qaaday waan niyoonayna insha Allah habeen dambe jimcaha habeen dambena markaska jimcaha ka soo qayb gala ijtimaaci hargeysana uu dhow yahay waa September ba sanadkan dib loo yar riixay isa soo diyaariya jamaacadda ilaahay dartii u socday inii imanayana oo nusrayaha laga faa'iideysto insha Allah amiin hada hay wadad badan baa inoo duceeyay waan wada duceynaa amiin hada bismillah alhamdulillah thanaa lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مطرودا ولا محروما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما